واتها waxay la tahay wiil Soomaaliyeed magacaaga walaal ani aadan bariira aadan ku soo dhawo VIP ajib aba kamarada noo fiirinaa aad u madsan aadan dhaqanka Soomaaliyeed waxa moodaa inuu isbedelay maanta waxaan ka hadlaynaa fanaan Muqdisho ku nool oo la yiraahdo Socdaal fanaankaasi waxa dhacday weekend gudihiisa inuu isla weekend gabar arooso taas loo xiro media lagu baahiyo kadibna waxa dhacay intay isqabteen in isla mar ahaanta TikTok live ay uga jira inuu gabadhii ku dalaaqo laba dalaaqo ku furo marka aragtidaada maxaa ka aaminsantahay live qofka laga furay gabadh Soomaali ani ahaantayda Socdaalka waan fiirsadaa sax Socdaal fanaan uma aqaan maba u aqoonsan wali macnaa liiska difanaan dadka ugu xun taageerisan ku jira waa tahay hadda fanaanimadiisa kama dabeecadda kale soo kordhina waa mid aad u la yaabanahay sifaan qof live laga furay oo meel camera inta la joojiyo gabar laga furay gabadha macala asaga waxa waa meel ay u dhaceen diinta iyo dabeecadda iyo sharciga islaamka iyo qaniba ninkaasna fanaanimo uma taageero waligeena ma aqaan waa tahay bal say dareemi kartaa gabadha arrimahaas ay ku dhaceen dareen nooca ama fanaanada waa ka xumahay gabadhan waxaan leeyahay gabarnimadana ilaale qof live laga furo gabar Soomaaliyeed ma jirtaba ninka hadii isku soo guurso ku furrabo si caadi oo waxa diinta waqfan saras ku furaa laakiin waa ku taas ku soo xiraa barina live aan ka furaa taas waa idin xumo dhalinyarada Soomaaliyeed oo waxaanu sheegayaa noocaas views hadaa ku raadinaysid down baan ku saarina koos baan u saaraysaa war dhabaad ani dadkayga ciidankayga gurkayga kulli waxaan baafinaa inay down hoos u ridaan aad kaga mahad celinaya aad ma san aragtidaad taagan wiil kale oo Soomaaliyeed magacaaga brother Araba liira Araba soo dhawo ku soo dhawo VIP ajib waa dhawa brother Araba waxa jirta social media wiil fanaan oo jooga magaalada Muqdisho oo inta kala qolaa la yiraahdo Socdaal kala qolaa liira wala ka saar waa tahay dhaqan uu nagu soo gudbiyay oo xajirta wiligeed aan la hore loo arkin wiliga masleys qof gabar Soomaaliyeed live laga furay horta marka hore live horta wax la iska furay horta ma jiro meesha dad live iska furay daarta waa dad isqabin marka hore inay isqabin isma qabinba marka taas waxaan u aragnaa in views lagu raadinayo shayga views lagu raadiyo waxyaabo badan ay ka soo galaysaa soo marka taas views raadaysan aragnaa marka Socdaal waxaan anaa qaabkaas views lagu maraaso qaab kale tahliima saabkay okay midan lisanka bedelo hal midan ku weydiin gabarda waxaan aragnay wiigi gudihiisa ayadoo la aroosinayo oo aroos iyo oo asaga aroosinayo ma arag marka arintaas oo dhan marka waxa leedahay views asaga ma ka aragtay taas waa sheeko kale maya waa ninki bidaarta lahayo sheeko kale waa dhahay maar si fiican ninkaas oo kale ka soo qaad views la taagantahay views aan taaganaa sababtoo ah wiliga adiga meeqa sana caradan joogtaa horta wax badan in badan adduun soo joogto ma wili ma aragtay wax qof yaani leef laga furo hebel leef ay iga furanta dhahay laakiin lisankaas horta wili ma aragtay casr cusub oo soo kordhay ma dhici karto waxaas wax jira ma qof islaanana waxyaabaha ku dhaqmo ma baahan marka asaga fariinta fariileed maxay tahay asaga waxaan fariileen nidaamkaas nidaam islaam ku dhaqmo ma ahayn nidaamka bedelan dhiilay waxyaabaha yaani aad fiis ku raadinaysid waa qaldan yahay fiis qaabka ku raadinaysid ma qaab kale u raadan dhiilay aad ayaad ma san waa ma san taada waxa ila taagan wiil kale oo dhalinyaro isla markaas aragtidiisa ayaan fiirin doonaa soo dhawo horta marka ugu horeysa VIP ajib soo dhawo waa dhawahay aad iyo aad baa u mahadsantahay magacaaga jaamac muuse jaamacu su'aasha aan caawadna waxa weeye aragtida shacabka aan aruurinayna aragtida waxa ay ku leedahay waxa ku soo batay dadweynaha Soomaaliyeed dhexdooda wiligeed waxaan taariikhda dhicin ayaa ka dhacay social media maalmaha ugu dambeeyay marka tii ugu dambeeysan aragtida dadka fiirinayna nin fanaan oo Muqdisho jooga oo la yiraahdo fanaan Socdaal ayaa arooskiisa markuu aroosay wuxuu ka dhacay live-ka social media oo ka dhaxay kadibna isla laba habeen kadib waxa dhacday isla gabadhii arooskeeda isla weegi gudihiisa ku jirtay in live gudaheeda looga dhawaaqo dalqadeeda ayadoo lagu dhawaaqay in laba dalqadood lagu furay aragtidaada dhaqankii Soomaalida miyaa isbedelay ma maxaa soo rogalaya aad iyo aad baa mahadsantahay adiga iyo miidiyaha aad iyo aad baa mahadsantahay baha saxaafadda iyo yarka kameramaanka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed si fiican intaas kadib hadii aan fikirkayga arinta ka dhiibto horta anigu Socdaal fanaan ma aqaani inkastoo fanaaninta dhan aanan danayn oo si fiican aan xogaa si aan waa adiga aragtidayda si fiican
ninkaas dhalinyarada ahna anu nin aan fanaan u aqaano oo bahda saxaafadda inuu ka mid yahay bahda fanaaniinta inuu ka mid yahay aanu aqoonsanahay ilaa hadda ma ahan taa markii laga yimaado dadka Soomaaliyeed meel kasta oo jooga dhaqan bay leeyihiin iyadoo arinta fanaanimada iyo arrimahaas kaleeto iyadoo waa ku soo wada iyadoo arrimahaas oo kale culayska iska leeyihiin oo dad badan oo dhaqan xun Soomaalida ay ku jiraan haddana waxaad moodaa inay ka badbadis uu jiro oo dadkii Soomaalida ahaa xagga dhaqanka markii la eego dhaqan xumadii aad moodid in la isugu faanayo soo garan maysid in la isugu faanayo sababtoo diinteenu waxbay qabtaa dadka Soomaalida dhaqankooduna waxbuu qabaa ragga Soomaaliyeed guurku miisaan buu leeyahay in gabar la guursado miisaan buu leeyahay in guri la burburiyaana waa arrin dhibaato ah oo laga dagaalamo soo garan maysid diinteenu waxay ka qabtaa in guri la dundumiyo meesha ay dhigtay cid walba way fahmaysaa waxa fiican dadka dhalinyarada ah oo Soomaaliyeed nooc kasto ay yihiin waxa kula talin lahaa oo fikirkaygu yahay in aan lagu degdegin in guri la burburiyo wixii dhaqan xumayo dhaqan xumado iska walaaqay inuu ka hadlayna laakiin dadka sharafta leh oo Soomaaliyeed oo dhaqanka wanaagsan seebay dareemaysaa gabadhaas oo kale seebay dareemi kartaa walaalaheed familkeeda seebay dareemi kartaa wallahi de waxay dareemaysaa kullee haddii iyadu ay laba timi life dhexdiisa oo isu soo raaceen inay isku furaan de waxaan malaynayaa iyada lafteedu waxay qayb bay ka ahayd sugan maysid sababtoo ah inaan life inu galina oo ku soo furayaa lafteeda hawsheeda le moogta marka waxa moodaa inay wax isla wadeen isla ogaayeen inay tahay laakiin waa nasiib darro dadka Soomaaliyeedna waan ka wacyigelinaa waxa ila taan wiil kale soo dhawo wadhawaabo channelka VIP عجيب soo dhawo magacaaga oo ku dhaw Xudayfi waxaan ku weydiinaynaa waxa jira wiil fanaan oo ku nool magaalada Muqdisho isla markaas la yiraahdo Socdaal weekend gudiisa arooskiisa ayadoo gabadhii taas wadato rag badan waxay ku dhiiranayso sameeyay xaas labaad asoo xaas hore qabay ayuu sameeyay bal isla maalmahan gudahooda shalayto waxa dhacday in gabadhii oo live fadhido oo live ku furo laba dalqadood aragti nooca ka amsatay wala horta aragti falxun waa aragti qaldan waa nin walba oo Soomaali oo ka xumaaday inaad gawar oo reer ku soo siiyeen inaad live ku furtid wallahi ana waxa umaleeyaa Socdaal horta wuxuu jilaa ina challenge ahaanba challenge dhan uu nagu wadaa umaleeyaa arooskaas in challenge ah umaleeyaa aroos oo dhan amisantahay arooskaas inuu ahaa wax aan jirin ma leedahay ha waa adi gawar aad guursatay lacag kaga baxeen qarash kaga baxeen inaad sidaas fudud aad kaga furtid wallahi aad iyo aad u adagtay wallahi ama leedahay arooska waxba kama Muqdisho ama isleedahay wallahi sasa filay waayo hadda dhalinyarada daarti Nairobi joogan waxa jira dhalinyaro ay 30 ilaa 40 jira oo wali iska bulinay Socdaal buga suuleey laba naga qaba marka wallahi waa arin aad iyo aad asaga marka maxaa fari lahayd gabadha maxaa fari lahayd ayada aan waxaan fari lahaa horta Socdaal iyo gabadha qalad isma lahan waalidkiisa siya qalad isla waayo dad aan isku qalmin al siiyay Socdaal gabadha u bahdilay gabadha magaceedii aabeedu meesha ku sheegay dad bay ka dhalatay ehel bay leedahay qabiil bay leedahay inuu meesha saas ku furo gabadha ma ahayn haduu gabadha furaa si qaab loo furaa si xal loo furaa laakiin live kunta soo dhax gashay aadadeed gabadha soo deji ma dejina la isku furo wallahi arif xun waa aadan kaaga mahad celinaa Xudayfi aragtidaada aad baro baasan sidoo kale waxa ay la taagan wiil kale magacaaga Cabdiqaadir Yaro Axmed Cabdiqaadir ku soo dhaw VIP عجيب ku dhawaay waxa caaw ka hadlaynaa aragtida shacabka xaafadda isla ee ka qaban waxa jira fanaan Muqdisho ku nool loo Socdaal fanaankaas wuxuu live ku dhex furay oo isla markaas uu live ku furay xaaskiisa see u aragtaa ani ahaan aad iyo aad ilama wanaagsano gobonnimona ma aha waxaas waa gunnimo si fiican Soomaalina ugu horeyso hadda ugu horeysa gabar oo live lagu furaayo marka caan iyo wax ka raadi intuu isleeyahay ayuu gabadhana ku ciyaaray asagana isku ciyaaray si fiican waxaan kala talinayaa asaga uu sameeyay inta soo socotay inay ka taxadaraan gabdhaha inay ku ciyaarin gabar waa hooyo waa walaal waa u dhaxda marka gabar aad bay noogu weyn tahay ani ahaanteeda aad baa ugu xumahay arrimuhu sameeyay waxa la mid ah waa tahay sax horay tan uma dhicin dhaqanka Soomaalida dhexdeeda in gabar live laga dhex furo bal marka asaga dhalinyarta kaleeto ee daawan jirtay ku xirneed aad u taageersanaa maxay isdhihi karaan dadkii oo gunta horta waxay isdhehaysaa waa arrin fiican ay soo dhaweeyay laakiin goobtan waxay leedahay wax wanaagsan maahan nin gabar qiimeeda garnaayo life iska daayay ma awood hadda waxa ayada ku saabsan inuu meel public ooga sheego
waayo gabdhaha waa beer marka aadaan kaaga mahad celinayaa aragtidaada waa tahay waxay la tagaa loo wiilo Soomaaliya magacaaga brada waxa la Cabdiraxiin Maxamed Cabdiraxiin adigana brada Ali Sharma leeyahay labadiinaba ku soo dhawaada VIP cajiib waa tahay inta badan waa la socotaan oo maleena heesaha iyo social media ay wada wataan Zaid adigana sidoo kale waa tahay waxaan weydiinaa fanaan la yiraahdo Socdaal oo Muqdisho ku nool weegan gudihiisa ayuu wuxuu aroosay gabar isla markaasina aad ka wada aragteen social media isla habeen hore wuxuu sameeyay inuu gabadhii ku dhex furo live aragtidaada see aragtaa wallaahi barnaamijkaas live-ka lagu sameeyay aniga waxaan kamid ahaa dadka daawanayay sax run ahaantii aniga Socdaal kuma taageersan barnaamijkaas habeenkaasna aad baan dareenkayga aad baan u control waayay sax arintaasna wax had social media ka dhacaysana ma ahan waxaasna waxa waaye gabdhaha aan ka fiirsaneen marka hore meelaha ay lagu halgalayaan iyo meesha kaleento waayo hadda ka hor waxa daawaday wiil YouTuber sidan oo kale hortiisa in gabar lagu furo oo waliba uu furay qof travel inuu umleenayo arintaasna wax ka hadlaa ilaa hadda ma arkin ilaa tan Socdaal moogiye sax marka aniga raayigayga marka ay la tahay Socdaal aad buu qaldan yahay waayo aniga ahaan damirkayga ma siin lahayn qof dumar ah hadana hadii aan kala tagayna hata si private ahaan inaan u kala tagno moogiye meel public oo hadana Soomaaliya oo dhan daawanayso inaan ku kala tagno damirkayga ma siin lahayn adigana soo aragtaa arintaas okay ana waxaan u arkaa ilaa horta qoftaas gabadhaas la furin uu ma horeyso laakiin waa gabar Soomaaliyeed inuu saas yeelmaheen because aan waalida dhale walaal la dhashtay inuu saa macna meel public inuu ku furo Soomaaliya ficnaani ana aanteeda ku maracsan Socdaal maxaa ka aaminsantahay Socdaal wallaahi waxa ka aaminsanaan ma aqaan goode ka ana aanteeda laakiin ku maracsan arintaas iyo barnaamijkaas wax inuu sameeyo oo ku qaldan yahay Zaid adiga maxaa ka aaminsantahay Socdaal wallaahi aniga waxyaabo far badan ka aaminsanahay sida qof isla weyni ku jirto oo wuxuu doona sameeysan kara wuxuu doona iska dhaafi kara like gabadha markuu guursanayay asaga wuxuu anaga horteena ka cadeeyay anagoo daawanayna barnaamij toos ah inuu asaga ay haaskiisa ay tahay ay isku raacsan yihiin maantana wuxuu na tusay wuxuu asaga yahay ama gabadha ay ka dhigtay oo asaga maanta ay u qarsanayeen inuu banaanka noo keena aniga ahaan waxaan ka aaminsanahay inuu qof xun yahay misna qof aan abaal loo gali karin ama jazaar uu yahay waata dhalinyarada taageerta ma taageero badan ku heli karaa arinta noocaana mise taageeradiisa soo dhici kara maya wallaahi taas ma sheegi kari waa asaga iyo shakhsigiisa laakiin waxaan filayaa inuu taageero badan ku heli karin waayo qof walba oo ku taageerna waxa ay cad inuu yahay qof aan dumarka agtiisa ixtiraamka lahayn hadduu arintan ku taageero adigana والله sidoo kale soo qofkaas qof agteena qiimo kala ma laha sidoo kale dhankana ayna qiimo kuma laha because aan gabadha ku dheerto waran gabar Soomaaliyeed oo markaa waxay la tahay wiil kale oo dhalinyaro magacaaga Nurdin Maxamed Mire Nurdin oo kamarada adoo fiirinaa legend soo dhawo waa dhawahay brada ma sha Allah waata aragtida shacabka xaafadda Isliya aruurinayni waxaan ku weydiinaa TikTok wada watay iyo live-kinta badan ku jira in badan social media si fiican waata nin la yiraahdo fanaan Socdaal la yiraahdo Muqdisho ku nool ayaa live wuxuu ka dhex furay xaaskiisa oo isla markaas aan arkayna weegan gudihiisa inuu aroosay hada fanaankaas aragti nooca ayaad ka aaminsantahay marka hore horto Socdaal lord aan agteyd fanaanka ma faade Socdaal agteed fanaanka ma faade ha aragtid han because horta diili dhahan waa fanaan ma u qaadinayo ma hadda fanaan waa kullee hadda waa fanaan laakiin social media ku jira le sax mar axdaas miyaa horta social media waa keer maqnay laakiin mana arkaasoo leeyahay inaa guursaday arooskiisa dhacay soo iska waalo timaha kala soo marsad waxyaaba arkay sax haddana waxa maqlahayaa wanaagti ninkii ayuu laaf ku furan faantay sax ninkaas horta waxa fiican in social media laga qabto waa gartay oo laha infaad oo diga xarunta waxa dhigi jiray dadka lagu xanaaneeyo waa gartay marka horta naag live lagu furaa ma jirta naag marka la furaa waxa inay marqaati wax walba u baahato faantay sax oo dad loo yeero oo dad marqaati ay lahaadaan waa gartay ma ogi naag live aha heblo waa iska furee oo iga furantahay waa tagtay ma jirta sax awal hore oo liiri mataqaanaa waaga asxaabta dhigi jiray asxaabta hore oo dhahay saddexna waa dhab saddexna dhab ma gashin faantay sax heblo waa ku furi waa furantay heblona waa ku sii amal waa gartay waa ku sii amal waa ciyaar ma galaan ha intaas ba ciyaar ma galaan هذا واحد اللي يسوي تك أو هذا واحد جوا ودن أو وقتي هرمر لجاري تكنولوجيا عصري ماذا أو تكنولوجيا عصرية ماذا هبلاي واقف فرادير لها ما نقنيس صح مركز صعدال وحن إيه هاي إني كاس إن لقبته أول حرف هذه
asaga la xiro isaga dhan in la xiro ba waata marka maxaa iska bedel dhaqankii Soomaaliyeed aad dhigi kartaa wax badan iska bedel fahanti sida hadda la jooga amal waayo ma dhici karto gabarna dhahay amal maanta hebel waa ku sii dhahay hore gacanta la iska qabsanay ma jirto marka waxa leedahay socdaal maxaa dhehaysaa ugu dambeyn socdaal Soomaaliya socdaal arintaas ka fiirsada ku noqdo mar labaad fiirsada intuu dhiin hebla life aan ku furo amal waata aad